السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan waxaan tacsi tiiraanyal oo murugal uga dirayaa dadkii walaalahayn oo ku geeriyooday qarixii ka dhacay Afgooye ex-control halkaa ku dhamaaday intii dhimatay Allah u naxariisto heeladii ay ka tageen samari iimaan Allah ka siiyo anigoo ah hooyo Soomaaliyeed ku nool Kenya waxaan ilaahay uga baryayaa dadkii in ilaahay samari iimaan uu ka siiyo meesha dadkooda ku dhinteen kollay agoon iyo rajo iyo wax walba way dhaceen dadka wuxuushtaa wax magaratada dhibaatada ay u geysteen ilaahu samari iimaan ka sii ilaahay inaga wada siiyo kaliya kama dhiman dad Soomaaliyeed way anagoo dhan bay naga dhinteen waxaan halkan kala hadlayaa wiil yar oo la yiraahdo BK oo halka iyo Somaliland fanaanka BK horta qalada badan baad Soomaaliya gashay nimcahay la wiil yiraahdo ka gashay xamar hayga maqnaataa maqlayay Soomaaliya waan ka dhamaad tiri laakiin maanta ay kugu darnaydo xaar baad dhex fadhidaa diyaarad baad ka dhacday dhulkii baad ku qaraxday waxaad tiri qaraxyada haday rabaan Soomaaliya reer Muqdisho haday rabaan in qaraxa la joojiyo hana aqoonsada war madad dilkii baad aqoonsi ku raadinaysa iyo dhig walaalka nacsiyo nacasku ahaa adigu su'aal baan ku weydiiyay ma siyaasi baad tahay ma fanaan baad midda labaad marka hadda ka tacsiinaysid ma markii hore aad waalnayd oo waalan baaba sidaadaba lagu arkaa iska dib istiqaarada fanaanka shahaadiisa iska dib fanaan ma ihid waxa tahay nin xoogaa madaxa looga jiro because hadii aadan fiyowdahay kuma bahadasheen wararka hadda ku hadlaysid markii hore aad waalayn saadeera waalanta fanaan uma qalantid fan ma tihid fanaanku Soomaali oo dhan buu ka dhaxeeyaa Somaliland ma laha Puntland ma laha Ethiopia ma laha Kenya ma laha fanaan Soomaaliyeed waa andi waa fanaan Soomaaliyeed ma aha labo ma aha saddex fanaan waa fanaan ha kala gurin fanka adigu sidaadaba siyaasi baa tahay waxaad musabixi iyo kuraasta kula dantan dadkan nimankan aad leedahay kursi hana la aqoonsadana warna aqoonsada dheh oo adduunweynaha qaado maxaan ku leedahay batch aqoonsiraad Somaliland kaliya in dadka Somaliland kula joogaan waxba kama sheego dad walaalaha waxayna u tacsiinayaan dadkii ka dhintay ehelkaagii dadkaagii oo dhan baa tacsiinayay adigu nin waalno Soomaali aan ahayn baatay Soomaali ma u qalantid mislaan ma tahay gaal ma tahay I don't know ma garan karo way kugu dambaabi noocaaga anigoo hooyo Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa fanka ninkii wax ka yaqaano BK fanka in laga saaro oo fanka banaanka looga mariyo oo BK istiqaarada fanka u dhigo oo uu aado meesha la yiraahdo siyaasadda siyaasiyaad anagu hooyaan nahay wiilkii dhintaa waa kaayagii kii maxaan ku raahdaa dhaawac ma waa kaayagii noocaagaas oo kale wixii saas yiraahdaan waan ka soo jeednaa kugu dhamaato marka